بسم الله الرحمن الرحيم كل ما سنتا وديال waxaan waraysi la yeelan doonaa mid ka mid ah nabaddoonnada ku nool degmada Cadaado galguduud waraysan waxa uu weydiin doonaa Suudaanka xaalad siyaasadeed ee ka taagan deegaanada galmudug iyo sidoo kale doorka nabaddoonnimo ee waxqabadka deegaanada galmudug ka qaadan karaan xalinta khilaafka ka taagan deegaanada galmudug si gaar ah Soomaaliyeed oo ognahay in xilligan xiisad siyaasadeed ugu xumeed ay ka taagan tahay nabaddoon Cali Cabdullaahi Maxamed oo ugu soo dhawaanaya wareyn TV Kalsan marka labaad Suldaan Cali Cabdullaahi Maxamed oo wareyn ugu soo dhawaanaya TV Kalsan marka xigta bal waxa iga warantaa wax kala socota xaaladda siyaasadeed ee ka taagan deegaanada galmudug si gaar ah Soomaaliyeed naadir waa mahadsan tahay waa dhawahay aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa TV-ga Kalsan TV fursadan siiyay arrintan ku haboonayn in laga aamuso maantay qof mas'uul ah oo jooga adaltiyo maanta taagan inuu ka aamuso xaaladda galmudug aynan ahayn waan kaga mahadcelinayaa fursadaada siiseen iyo waraysiga iga qaadaysaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waan kaga mahadcelinayaa haddii aan u sii galo aragtidayda adeer hawshu loo xalay laba nin ayaa isku soo booday waa kala xoog badi waayeen markay kala xoog badi waayeen waa iskilkileen ninaa wuxuu yidhi warniyo isku dhiriraamayne ama ii dhac ama aan kuu dhaco isku dhiriraamayne galmudug maanta waxay rabtaa in laisku tanasulo in maaragtay laisku samro in mustaqbalka iyo future-ka galmudug in laga taliyo aayaheeda danta guud la wada fiiriyo maantay laakiin aan dan shakhsi ama dan urur ama dan xisbi midna aan la fiirin sidaasaan leeyahay ka suldaan ahaan adeer ayaan leeyahay fikirkaygu halkaas ku abaaran yahay maanta in loo tanasulo xaqiiqada ah oo jiritaanka ummadda iyo masiirka iyo matalaadda iyo nolosha iyo maaragtay in loo tanasulo sidaasaan adeer aniga aragtideedu ay ku wajahan tahay Suldaan waxa uu leeyahay in xogaha xisaasadda ay taagan tahay dowladda federaalka iyo xubin mucaarada ay isku hayaan iyo sidoo kale mukarnaysa maamulka qalbisay Suudaamaadkii door ma qaateen oo ma aadeen ku baxeen sida arrinta loo xalin lahaa markaas hal maamul oo midaysan dadka deegaanada galmudug ka qabaatan loo dhisnaa adeer ninaa wuxuu yiri wuxuu ku maamaahay nabaddoon ahaa jiray oo reer galguduudeed ahaa iyo reer mudug intaba wuxuu dhihi jiray horta wax ma kaa aan wax ku gale horta wax ma kaa gala horta reer Cadaado waa meeshii 11 qabiil galmudug waxaa la dhihi karaa waa aabbihii reer Cadaado waxaa la dhihi karaa waa aabbihii galmudug waa meeshii galmudug lagu aasaasay galmudug waa meeshii ay ku dhalatay waa meeshii 11 qabiil lagu martigeliyo la sugu yaaray ee lagu dhisay Cadaado ayay ahayd Cadaado waxa sidaas iyadoon waa lagu shaqeeyo galmudug way ku soo hana qaaday ilaa iyo xilligii aad ogeedo marqaatiga aad ka hayseen Soomaaliya dhan ilaa xilligan ilaa laga tagay iyadoo looga tagin waxba wixii laga tagayna aan waxba laga soo saarin ayaa dareemaysaa adeer marka aan wax ku galay wax ma kaa gala horta yaa wax na weydiiyey yaa wax nagala tashtay yaa maaragtay yaa dhaga yaa u leh in qof walba wax uu habboon yahay in lagala hadlo ama la weydiiyo horta waxa socdaa ma ka mid yihiin ka mid maahan adeer hadday ka mid yihiin oo wax walba meesha ay leeyihiin la dhigayo waxaanu ma dhaceen maanta dhacay 3 madaxweyne kama dhacdeen galgaduud iyo mudug galmudug ma yeeshaan waxay wax u soo bixi lahaayeen sidii lagu aasaasay oo aad taqaanay oo Cadaado 11 qabiil inta la isugu keenay galmudug ay ku dhalatay ku kortay ku hana qaaday ku barbaartay markii ay socon kartana ay dhaqaajisay aad arkayso heer federaal loogu caasiyoobay heer galmudug ahaana loogu caasiyoobay Cadaado meel cidlaa maqaam la'aan looga tegay iyada oo qayliyay looga tagay dareemaysa dhuusamareeb la tagay dhuusamareeb markii la tagay waxa aad arkaysaa ka dhashay laba madaxweyne ka soo dhalatay iyo madaxweyne asaguna ka soo laabtay Cadaado markii hore ka tagay ka bacdina u soo laabtay haddana jooga gobolka mudug qayb ka mid ah oo dhanka galmudug fadhiya sidaas aad dareemi kartaa marka aan wax ka galay horta aan wax ku galay wax ma ku gala wax ma kaa gala aan wax ku galay horta wax ma ka yaa xaqiiqadaba la isma weydiin waxaan leeyahay xaqiiqada loo ka reer galmudugow wax walba meesha ay leeyihiin hala geeyo hana la isku tanasulo hana la joojiyo in la isxaqiro maaragtay marka wax walba in lagu matalo meel aysan lahayn دور ما قالت مرة شرعية سنية
hadashay si arrinta xal loo gaari lahaa oo arrinta hal maalin loogu qanci lahaa oo dhammaan dadka deegaanka galmudug ay hadda hadal hayaan adduunyaduba ma jirteen haddii aynan jirinin wax wanaag u taagan dadka iyo dalka wax wanaag u taagan lagama waayin laakiin waa bisaylkii iyo waqtigeedii ayaan la gaarin waxaan leenahay haddii aan halkaas dhex gashado waxaan leeyahay cadaado ayadood ogtahay galmudug in laga dhisaa laga tegey kaalinta ay ku leeyihiin reer cadaado maanta annaga waa horumar ayaan doonaynaa horumar aanu galmudug loogu yeeleelay reer cadaado waxaan leenahay cadaado xaafaa ka tegey waa madaxweynihii galmudug waad ogeyd kabacdina dib ayuu ugu soo laabtay waa lagu soo dhoweeyey mar labaad haddana waa dhaafay waxaan leenahay dowladda federaalka iyo reer galmuduggii ka tegey intaba haddana afkii waxaa la yidhi ba ay karay tooba waa kara waxaan leenahay cadaado imaada xaqiiqada ku soo dhowaada nabadda aabbihii galmudug ha loo yimaado sidaasaan leenahay aanu ka wada faa'iidaysanoon xaqiiqada iyo mustaqbalkeeda masiirkeeda ha la siiyo reer cadaado sidaasaan leenahay xaqiraadda si qof walba xaqiraaddu meesha ka bilaabatay waa halkan haddii la siiyo masiirkeeda iyo waxa ay leedahay iyo xaquuqda maadaama ay tahay meeshii wax lagu yeglaalay oo lagu dhisay galmudug inta kalena xaquuqdooda shay walbaa meeshiisiiyu tegaya laakiin waxaan leeyahay cadaada ha loo yimaado ha la raaligeliyo maqaamkeeda ha la siiyo ha laga ducaysto halkaas sidaas ha loo kaco si xaqiiqada loogu kaco sidaasaan leenahay marka deegaanka galmudug si gaar ah cadaado ma tagtaa maamul ay taageersan tahay sida axmed cali geelle xafiiska ku soo gaalkacyo maamulka maalin hore looga dhawaa gaalkacyo samreeb shaamshaaka dhal xasan iyo midkan dowladda federaalka Soomaaliya ay dhisayso oo qorshadeeda ugu jiro ma jira cadaado mid maamul ay si gaar ah taageersan tahay oo rajo weyn ka qabso in wax badan qabado ma jiraan wax la taageero oo hadda meeshaan kuu muuqda ma jiraan laakiin see wax loo badbaadiyaa taagan waxaan leenahay waa lagu dheelay wixii waqtigu nooga soo baxay wixii reer cadaado ay Soomaaliya ay ku soo dhaweeyeen ee reer galmudug ay ku dhiseen waa lagu cayaaran leenahay waa la burburiyey meel xun ay maraysaa saddex madaxweyne leedahay waa loo jeedaa meesha ay marayso marka waxaan leeyahay xaqiiqada ha loo yimaado cadaado qoryo Soomaaliya looga soo horjeedaa ma yaalaan qoryo urur ma yaalaan waa cadaado taqaanaan waa caasimadii baarlamaanka galmudug ku soo dhawaadaan leenahay suuqa Soomaaliya ha timaado ha suuqaana keento ha ku soo dhawaato maqaamkeeda ha diyaariso ayadoo ay u horeyso dowladda federaalka ay u horeeyaan mujtamaca qabiiladii 11 qabiil ahaa oo meeshaan wax ku wadaagay ee ku nabad galo ilaahay ku nabad geliyay reer cadaadana u istaageen aad og tahay inaanan ka qaadan wixii aan mudnay aan ka helin markii aan heli lahayna galmudug la baabi'iyo iyo la suuqaana daray annagoo wax maqaam nagal kaga tagin oo xididada waa in loo siiyo la isku dayay ilaa la caybiyaan leenahay waa caymanay waa noolnahay waa noolaan doonaa Soomaaliyana galmudugna waa noo imaan doontaa ayadoo insha Allah taala aanu ayadoo xaqiiqada ku salaysan xaaladdu waxay tahay meel xun maraysaa suurtagal ah in gacan ka hal isku bedesho xaaladda marka xawxi weyseen oo xal raadi weyseen si dhawaato soo dhacaan deegaanka aysan wadcaan gacan ka hal haddaad rabto inay isdisho waa la kala celceliyaa annagu wax walba meeshoodii tegayaan waxaan u aragnaa hadeer al-sunna wal jamaaca waa rag ururahood deegaan Dhuusamareeb gacanta ku hayay markii reer cadaada la dulmay laga tegey waa loo tegey ayagana annagu in dad la dulmana ma doonayno in annagana la dulmana ma doonayno dowladda dhaxan in la dulmana annaga ma doonayno annagu waxaan u taagana waa horumar iyo in Soomaaliya ay gaarto nolol iyo dib u heshiisiin inay gaarto xaqiiqa sidaasaan annagu mar walba u taaganahay marka waxaan leenahay meeshaas annagu dagaal wax nabadaanu maaragtay kaga baaqaynaa inaan dagaal la gaarsiin madaxweynayaal badan waa la gaarsiiyey oo aan munaasib ahayn laakiin waxaan leenahay aan gacan la gaarsiin iyo xabad urur Soomaaliya kii hore xal loo leeyahay marka haddii hadda xabad lagu bilaabo al-sunna wal jamaaca oo dowladdu ay ku bilowdo meesha isaga hor yimaadaan taas waxay la mid tahay waa soco weynay aan orodno shabaab awal xal loo la'aa oo urur Soomaaliya ka jira ah mid cusub haddii la furo marka waa weji labaad marka waa soco weynay waa socon weynay aan orodno taas sidaas la mid tahay waad adinkoo dhaqanka deegaanada galmudug haddana xal raadin oo adna ka daawatan arrimaha siyaasadda ee haya ama kooxaha siyaasadda galmudug isku haya oo hadda mid kasta uu sheegay madaxweynaha galmudug inuu isugu yahay soo lagama cabsi qabo dhawaatin aan dhacdo adinkuna ka aamustaan hadda waxay maraysaa nin walba madaxaaga meerax ku duubo aniga waa u jeedaa ka suldaan cali ahaan waxaan kaalintii aan lahaa ayaan qaadanayaa midda mujtamaca aan la wadaagayana waan u taaganahay oo waan ka qaadan doonaa hadda adeer waa sidaasa
cadaada door nabadoon intee la qaadan kartaa marka maadaama aysan jirin inta nabadoon kale u istaagay ama cid habeerata ku baxday si loo heli lahaa xaalad siyaasi oo degan oo galmudug beesna ku dhismi karto door ay qaadan karaan cadaada nabadoonnimo cadaada waxay qaadan kartaa cadaada waa meeshii 11 qabiil isugu keenay waa meeshii lagu dhisay galmudug waa meeshii inay jirto maantay lagu amal la xumeeyo ama la wanaajiyo sababtoo ahayd marka waa meesha diidan in la haleeyo galmudug waa meesha looga taagan yahay mar walba in laga wanaajiyo waxaad dareemi kartaa oo taas xaqiiqo u ah madaxweyne afraada looga dhawaaqi lahaa haddii aynan wax ilaashanayn aynan u taagnayn jiritaan aysan ogeyn wixii ay soo martay haddii aysan ogeyn madaxweyne saddexaad afraada looga dhawaaqi lahaa cadaado waa meel wax ilaalinayso waa meel wax dhowrayso waa meel u taagan soomaalinimo waa meel u taagan in meel loo baxsado la helo cadaado marka la fiirsho waa hooyada galmudug ay dadka inta badan ku tilmaamaan marka bulshada cadaado iyo dhaqanka cadaado ma jirta maamul hadda ay leeyihiin waa maamul sax oo ama xaaf ahaado ama shaqaakar ahaado ama midka hadda dowladda federaalka Soomaaliya gacanta dhismiisa ay ku hayso Soomaalidu waxay tiraahdaa naftigabe naf kale ma galgaalo reer cadaado ayagaa laga bilaabay gudoominta galmudug ayagaa meel cidlaa looga guuray ayagaa ah kuwa samray ayagaa ah kuwa wax dhowrayo ayagaa ah kuwa aan madaxweyne dhisaynin si ay u helaan xaqiiqdoodii oo loogu soo jabo ninaa diindiina waxaa la yidhi hawar dugaaga u tashitay hilib uu ahaa la yidhi markaas isaga dhan oo jilicsan kabacdi waa ilaahay kolley ilaahay subxaana wa tacaala qolofta aragtuu saaray markuu dhiftooday kabacdi qolof weyna lagu daboolay marka qoloftaas ayuu ka dhaxlay dhibaatadii uu soo maray iyo samarkii ilaahay subxaana wa tacaala haddee waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay nabaddaas aan haysano noo siyaadiyo dhowrsanaanta ilaahayna dhowray ilaahay inuu noo siyaadiyo oo naga mahad celinayno waxaan rajaynaynaa meeshaas madaxweynayaasha halkaa lagu kala dhisay shartooda in halkaas ilaahay nooga hayo waxaan u arkaynaa inaysan dabcan ahayn wax horumar ah laakiin wixii horumar ah ayaanu ilaahay weydiisanaynaa inuu ilaahay halkaa noogu keeno nala kaga tegey nala ku dulmay reer cadaadana waa dadkii ugu horreeyey oo la dulma ayagay ahaayeen lagana bilaabay galmudug in la dumiyo ayagay ahaayeen oo looga guuray halkan xaafaa ka tegey oo u tegey alsunna waljamaaca dhuusmareeb ugu tegey waa soo jabay oo kama uusan hal miduu kaga fiicnaa sida hadda jirta isagu waa soo jabay dhibaataan meesha ku soo arkay kama uusan xishoon waa noo yimid oo waa soo dhoweynay waana gudmino waana dhaafay wuxuuna tegey meesha la yidhaahdo gaalkacyo qaybta galmudug halkaasuu isaguna wixii isku magacowday waa soo jabay kama una xishoon marka waxaan leenahay wixii naga tegey oo ay u horshayso dowladda federaalka oo xaquuqdeennana sii lahayd soomaaliyana maaragtay kaalin doorka ay ku laheed oo ugu sarreeyey ka qaada lahayd oo riboodka loo keeni lahaa annagu meeshii nooga tagtaan joognaa nala ku dulmay waxaan leenahay yayna ka xishoonin in naloo yimaado yaan laga xishoonin maamulaha jira marka haddii maamul mid ka mid maanta caad u yimaado oo jeclaan lahaydeen caadanta maanta u yimaado aad soo dhoweyn lahaydeen maxaba midka dowladda federaalka hadda dhismaha gacanta ku haysaa ma Sheekh Shaakir iyo waxa uu Dhuusmareeb la joogaa ma jira maamul gaar aad ka taagsan jeclaan lahaydeen in caadanta yimaado uu shaqeeyo bulshada deegaankan dhibaatada ku jira ka bixi horta cadaadu waa qaybtii meeshii gudul lagu yaglaalay galmudug waa meel xaqiiqada jecel ama beenta jeclayn iyo buluutikada laga badan yahay lagana buunbuunis badan yahay waa meel uunan deganayn urur waa meel markay socoto qabiil u aftirsato weye reer cadaado waa meel maaragtay laga jecel yahay nabadda iyo nolosha sidaa daraaddeed waa dad jecel inay si dawliya oo wax loo wadaago oo qolo walba ay xaquuqdeeda ka hesho Soomaaliya inay isdulmin dad lagu yaqaano dulan maahan cid walba oo wax dhex maraana seen bari taariikhdooda markii la raadiyo waa qolo ay gardaraysatay waa ama qabiil ha noqdeen ama dawlad ha noqdeen ama shakhsi ha noqdeen seen bari ayaga un baa la dulma haddana dulunka la dulmay galmudug oo in la burburiyo intaas madaxweyne loo sameeyo la marsiinayo cadaada laga bilaabo wax lagu dhisay waa maadaama loo dekenaynayay 11 qabiil inay isugu yimaadeen galmudug ay ka dhalatay nabadu ka bilaabatay ay ku hana qaado horumar lagu gaaray maadaama ay noqotay ayadaa laga bilaabay in laga guuro dadka laga raro ayadana la cambaarayo oo laga tago sidaas ayay ahayd marka waxaan leenahay annagu cid haddii aan soo dhaweynayno oo aan wax la wadaagayno waa wixii annagu waa dawlad ku socota xaqiiqo
oo annagana kana siinayso masiirka wax aan ku leenahay dowladnimo Soomaaliya qabiilada kale oo nala midkaana siinayso waa inta annagu waxaan soo dhaweynaynaa annaga ururaan soo dhaweynayn ururaan ahayn reecadaadu ururaan laga taageerin waa maadsantaa mid kasta wuxuu sheeganayaa inuu madaxweynaha iyo maamulka saxda Galmudug soo inuu yahay marka laga rabo midka hadda dhismaha haysto dowladda federaalka ay ku jirto oo goor la malaynayo in dowladda federaalka Soomaaliya ay dhisto marka ilaa hadda waxa dhisan laba maamul oo mid kasta uu sheeganayaa soo maamulka saxda Galmudug uu yahay marka labadaas maamul jeclaan in deegaanka ay yimaadaan sheegtaan ay yihiin maamulka saxda Galmudug soo dhaweeysan la shaqaysan والله كسلطان هان أنا واحد جعلان لهين هنا إنه دولة أو قلوا الباء حقوق ذي زينيسو وعن دغن عن فيجا وحكو معمولين أو دغن كلا يقارنوا وحمعموليو وزيري اللي وحمعموليان دلنيرو اللي يقارن أيهين مركا قلوا الباء برلمان كيسيهاي سوى حقيقة أنا واحد من الدولة وحمعموليسان زود ويننا إيفان هدان وحزود وينين sidaasaan annagu soo dhaweynaynaa ayadoo wadda keliya iskama soo dhaweynaynaya si xaqiiqaan ku soo dhaweynayna waxaan ku soo dhaweynaynaa ayadoo masiirkii cadaadood wadda oo kow annaga nagu raali gelinaysa Soomaaliyana waxay u waddo wax wanaagsan u qaybinaysa oo aan ahayn dawlad wax duminayso oo wax boobayso oo urur taageeraysa aan ahayn ama xisbi ayadoo ay wax la jeceshahay oo rabta inay soo baxdo 21ka inay ayadoo urur wax maraqsada ayadoon wax u xoogeyn oo aan cidna dulminayn annagu dawladdaas aanu jecelnahay haddii la helayo ilaa hadda door aqaateen ma jiro oo dhexdhexaadnimo ah ama mataqaana kooxahaas ayaa loo kala dabqaaday sida dowladda federaalka iyo sunno iyo madaxweynaha Axmed Cali Gelle Xaf oo isku haya arrimaha siyaasadda deegaanka Galmudug ama xilka madaxweynaha Galmudug halkan wuxuu inaha ka daawataan dhibaatana deegaanka soo wajahdo maamulka Galmudug kala tago wallahi ma daawanayno hadda aan la taaganahay كسلطان العهان أنا وعدكي نقول بو أنا هرك وشيء نقول بو ماذا حاجة ما راح كحرة أي مريض أنا لقلب مدق عند عيارته لقيت دايو قلب مدق شيء حقيقة إن هلا وحلو وذاقو قالوا والباه واحد إلى هاي هلا سيو واحد ظلم وتي هدي أي جيران واحد لقي عليو إن قالوا حقوق كم قنات هدي أي حقوق ذي هلا سيو إن دولة فدرال كدولة اللي هي حس مسير كذي أيضا حق على التكالين تيدا وقتها سي بربارين له oo leh dawlad dhexe waa inay dadka u dhaxayso macnaheedu waa sidaas dadka u dhaxaysan leenahay hana qaadato waa anigii ku yiri nina wuxuu yiri niyo ay dhacama aan ku dhacay isku dhiraamayno haddii alqaasil haddii la diriro aabbaha iyo carruurtiisa aabbuhu asaga laga rabaa inuu tanasulku keeno oo carruurtiisa uu soo mar walba uu u samro barbaariyo marka dowladda federaalka cidda koowaad oo qaadanayso go'aanka inay samarto waa ayadan leen ayadoo aad samarto ha u samarto Soomaaliya ha u samarto maaragtay wax walba wax ka tabanayo si wanaagsan hadday iyadu ku wado faragelin wixii hadday soco waayeen hadda wixii waa inay dawladdu ay fahansan tahay ee dadka uu wakiilka inay soco wixii waa soco waayeen ku daydo sidaad wax u jeclaatay soco waayeen waa inaad si kale wax u dhigtaa سلطان علي عبد الله محمد ugu dambeyn ma jirtaa baaq u jeedinaysan dhinacyada sahaya ee Galmudug si loo kala Galmudug mooysan oo dadka deegaanka Galmudug ay dhibaataysan oo siyaasiyiinta deegaanka Galmudug fahmi lahayn dhibaatada Galmudug haysata baaq u jeedinaysan si arrintan nabad loo qabto baaqa u jeedinaya wuxuu yahay in halka aan la dhaafin wixii madaxweynayaashu inay inta dhaafin iskhilaafka inaan halka la dhaafin haddii faragelin dawladda jirtay inaan halka dhaafin haddii ka badbadin ururay jirtay inaan halka dhaafin wax walba in halka lagu hakiyo si xaqiiqana loo talaabsado intaasaan ugu baaqayaa dhammaan Galmudug hadday dawlad tahay hadday tahay al-sunna wal jamaa hadday tahay garabka xaaf waka sidaasaan u baaqayaa hadday tahay reecadaado oo ayagu u taagan mar walba maanta anigu codkoodii aan ku hadlayo ka Sultaan Cali ahaan sidaasaan leeyahay وياهي داود أنت سنكسو جوجوينا ورثة قار كان علي لين سلطان على عبد الله محمد أو ورثة حالة الدجنة الجمد دنك سدع كيرن يدور كنا بدون رعاية كقادن كران سجى حل وجه لها الدجنة الجمد حسد السياسات أم كتاعن سجار وسمرب ورثة وحلا سعودي أنا وحسن أحمد محمد تاني تبرامج كان تاني تورثة من لما عندكم كل مدونة ما بعد هذا